السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الرحمن يمرحقة برنامج هذه تحني نوعها برشدة حرفضها كمبيوتركا halkani sidaan hore u sheegayba waa Somal podcast ama warsidaha Somal we stream your voice waxaana tabinaa oo baahinaa codkaaga maanta qorsheenu waxa weeye inaan dadka la wadaagno Zoomku wuxuu noqday barkulan siday COVID-19 dalkan uga dilaacay Mareykanka iyo dunida inta badan waa gole lagu kulmo saaxiibada eelkaaga shaqadaada dawladda iyo waxbarashadaba ayaa aad u isticmaala marka waxaan jeclahay inaan dadkeeda ka qabtirno siday u isticmaali lahaayeen Zoomka taasoo ah mid aan laga maarmayn saashayna xiriirka bulshada maadaama lagu jiro kala qoqobnaan aad u baahsan sidee baa Zoom looga qayb qaataa sida tan bay u dhacaysaa waxaad tegaysaa Google Chrome ama Explorer-ka ayaa tegaysaa isticmaal furaha shabakadda sida Google Chrome ama Internet Explorer kadibna ku dhufo balaga Chrome inta badan markaad leedahay account Zoom waxaan hadda rajaynaya inaad leedahay wuxuun Zoom account ama Gmail account marka Zoom haddaad leedahay adaa gudhaada bilaabi kala kulman noocaas haatan laakiin waxaan leenahay in aad heshay casimaad ama invitation kaaga timid shaqadaada saaxiibadaada ehelkaaga waxbarashada intaba marka balaga Chrome-ka ayaad ku dhufanaysaa deedna waxaad eegaysaa invitationkii ama casimaadda aad heshay inta badan casimaadda waxaa la socda waxaa la yidhaahdo access code oo ah lambarka lagu galo iyo furaha intaba kadibna markaad intaa ku dhufato waxaa leedahay join Zoom go to join Zoom oo ah ku soo darsan Zoomkan halkan marka waxaad gelinaysaa talaabada xigta meeting ID oo dabcan aad ku heshay xagga emailka ama text message ku heshay markaad heshay ID-gaaga qofka ku cazimay ama organizer-ka ayaa dabcan janad garanaya arrinta iyada waana mid la geli ID kulanka uu ku siiyey cidda kulanka qabanaysa ama isku dabaridaysa deedna waxaad leedahay join a meeting ID personal link meeshaad gelinaysaa wey halkaas join ah oo ah ku darsan ayaad deedna dooranaysaa waxaa kaloo jirta iyadu kulamo la mida Zoomka oo la yidhaha Google Meet oo Gmailka oo Google-ka uu leeyahay oo qudheedu ay tahay shabakadaha online-ka lagu kulmo inkastoo Zoomku sanooyinkan dambe uu caan yahay wax badan bay iska shaabahaan kulamada noocan ah sida tan buuna u dhacayaa Google Meet-ka barashadiisu join a video meeting ku kulan oo ku bid kulan video conference ah oo online ah adoo isticmaalaya Google Chrome waa browser-ka macnaheedu waxa weeye ka qaybgal kulan video ah xariga shabakadda kulanka adoo isticmaalaya furaha shabakadda Google Chrome talaabada xigta oo mid labada waa open the email with the meeting link fur emailkaaga adoo ka daalacanaya ka eegaya linkigii ama casimaadii lagu soo diray oo qofka kulankaas organize gareeyay ama qabanqaabiyey uu kuu soo diray dabcan waxay ka imaan kartaa shaqada jaaliyadda hay'adaha dowladda waxbarashada iskuulaadka iyo madaxda la doorintaba marka waa fur emailkaaga
xarigga shabakadda ee kulankan deedna dagsii xarigga shabakadda ee kulanka halkaa ka dega waxaad haysataa ikhtiyaar ama joyce aad ku bidho kulanka oo ah ask to join macnaha waxa weeyaan weydii ama warso inaad ku soo bidho intaa markay dhacdo qofka markaad meesha ku dhufato qofka kulankaad agaasimayey ayaa helaya fariin ah in miisaal haddaan kuuso qof magaciisa maxamed baa dalbaday inuu ku soo biro kulankan dabcan axmed waa mid lahayo xogtiisa emailkiisa iyo magaciisa saasayna saaran tahay in qofka organise gareeyey uu ogolaado inuu golaha ama kulanka soo galo when someone in the meeting gives you an access sida qofka organizerka you'll join it waxa weeye markii mid ka mid ah kulanka dadka qabanqaabi ku siiya ogolaansho baad ku soo biiraysaa always xusno make sure you allow if it's your first name using Google Meet uu yahay mid isticmaali kara magacaaga waxaan ka hadlayaa microphonkaaga iyo kameradaada marka xaq bad waxaad u leedahay inaad codkaaga aad bloggarayso ama aad joojiso sidoo kale muuqaalkaaga hubi inaad dhegsiisay allow ah oo u ogolaansho ah haddii ay tahay markaani kugu horeysay inaad isticmaalayso Google Meetka si aad u hubiso in sawirka iyo mikrofoonku saamaxaad u haystaan intaa ka gadaal waxaa ku soo baxay sida tan muuqaalkan shaashadda madow ah oo oranaya no camera found haddii aad kameradii aadan ogolaansiin sida tan bay u muuqanaysaa laakiin waxaad haysataa fursad ah inaad tijaabiso inaad shaqaynayso